waxaa hadalhayn dhaliyay maalmahan arrimihii e-visa ee dowladda federaalk Soomaaliya kusoo rogtay weliba shacabka Somaliland ayagoo caqabado kala kulmay maadaama ay wateen baasaboor ajnabi ah. E-visas marka hore wuxuu cadeynayaa dalka qofka soo galay ama qofka kasoo baxaya aanan wadan baasaboorka Soomaaliga. midba mida ka darnay e-visa kadib dowladda Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in duulimaadyada heerka caalamiga inay marka koowaad kusoo dogtaan caasimada Muqdisho kadib kuwa loo kalo diyaarada caadi ee dadka markaas usii kala qaadaan gobolada. qorshaha saddexaad ayaa ah ama haddaba socdaba in kadibna dadka lagu xujeyn doono dalka ka baxaya ama gudihiisa ku safraya in la weydiin doono kaarka aqoonsiga ee NIRA, taasi oo caqabad ku noqon doonto dadka reer Somaliland markii ay kasoo baxayaan Hargeysa Muqdisho haday imaanayaan aysan wadan kaarka aqoonsiga ee NIRA diyaaradda ma soo qaadi doonto. marka dowladda Soomaaliya iyadoonan adeegsanin wadooyin dadka si kala geyn kara ayay si fudud oo diblomaasiyadeed marba marka ka dambeysa Somaliland kusoo gabagabeynaysaa.